afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame oo waraysi gaarsiinaya telefishinka caalamiga SABC TV ayaa waxa uu ka hadlay qaabkii uu soo dhamaaday shirweynaha lixaad ee xisbiga kulmiye ee maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal oo maanta la soo afmeeray waxaana uu sidoo kale ka hadlay kamid noqoshada uu kamid noqday golaha dhexe xisbiga maxaafidka kulmiye isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadalkiisa kamid ahaa maanta 26 bisha 2 2019 gobolka Awdal xaruntiisa degmada Boorame waxa si habsamaya maanta u galay maalintii labaad shirweynihii golaha dhexe xisbiga midnimada iyo horumarka kulmiye xisbigan oo maanta ay ahayd maalintii labaad ee ajendayaasha rasmiga ah ee qabsoomida shirkan ay ujeedadiisu ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su'aasha ay weydiisay saxaafadda oo ka jawaabo inaan ka mid noqdo maanta golaha dhexe ee xisbiga xaakimka talada dalka ay kulmiye runtii xisbiga midnimada horumarka kulmiye waa xisbi wadaaga oo la wada leeyahay waana xisbi gaamuray oo qaan gaadhay oo aan ahayn xisbi saaxadda siyaasadana ku hafanaya shirarkiisana ay ka soo baxayaan waxyaabo isburinaya iyo wax khilaaf iyo cid haysata waa xisbiga kaliya ee tiradiisa golaha dhexena ay sugan tahay waqtiga shirarkiisa iyo golaha dhexena ay cayimayeen inuu sidooda u dhacaan aniguna anoo ka mid ahaa taageerayaasha iyo dadkii xisbiga kulmiye inuu guulaysto muddaxileedkiisa labaad ee doorashada iyo ka hor markii madaxweyne Axmed Siilaan uu talada dalka hogaaminayayba xilalo hore uga soo qabtay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo golihiisa dhexe waxaan rajaynayaa sida aan ugu soo biireen maanta kaadir xisbiga golaha ee kulmiye ka mid aan noqday inaan ahaan doono xilku kulmiye aan ahaan doono xisbi ku kulmiye marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xisbiga kulmiye waa xisbi ballaaran waa xisbi dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudihiisa oo dhan ka jira wadamada caalamka ee dacallada dunidana ka jira golihiisa dhexena waa tiro kooban oo cayiman maaha xisbiga kulmiye daday taageerayaashiisu howlo wada qaadi karo golo dhexena wada noqon kara xisbigan asaaskiisii iyo muddadii 8 sano mucaaradka muddaxileedka qarankan uu laba jeer kalsoonida shacabka kasbaday oo ku guuleystay hadduu xisbi qabiil yahay uu saqiir halkan mu soo gaareen xisbiga xubnahan golaha dhexe ku jira waa xubno xisbinimo ku hanto xisbinimo ku noqday nimanka cadcadaad sheegaysaana golaha wasiirada automatic u gala ayay kaga jireen xildhibaanaduna automatic bay ugu jireen balse haddii sidii saamigii shirweynayaasha xisbiga lagu qaybiyay ileen dad baynu bulshaynu sumadii astaan baynu yeelanaynaa ay maalinta ka mid noqon waayeen maantana muddadii ay golaha dhexe ku hayeen wasiirnimada dee waqtigoodu uu dhammaaday balse xisbinimada kulmiye golaha dhexe kaliya ma xisbinimadu waa kulmiye waana kulmiye nimankaasi